بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد soo dhawaada walaalayaal jumco wanaagsan meel walbood joogtaan waa cashirkeeni labaad ee physics-ka maantana waxaan sii wadaynaa oo dhex noo joogay physical quantity oo aan ku soo sheegnay inay tahay waxyaabaha la cabiri karo oo physics uu ka hadlo toos loo cabiri karo ama qaab aan toos ahayn loo cabiri karo maantana physical quantity waxaan u qaybinaa laba qaybood oo waaweyn oo kala ah basic quantity oo ah qayb asal ah iyo derivative quantity oo ah qayb faraca basic quantity-gu qaybtan asalka ah tir ahaan waa 7 xabo derivative quantity-gu way fara badan yihiin laakiin 7dan xabo ay ka yimaadeen oo ka soo farcamaan basic quantity-gu waa 7 xabo derivative quantity-guna waa many oo ay badan yihiin marka physical quantity-ga waxaan u qaybeynaa labadan qaybood oo kala ah basic quantity iyo derivative quantity iminkana waxaan baranaynaa the 7 basic physical quantity and their unities todobada asalka ah todobada physical quantity oo asalka ah iyo halbeegyadooda ayaan baranaynaa shaxdan waa sida shaxdan ku qoran the base quantity-gu waa todobadan xabo oo length dhirirka mass culeyska time waqtiga temperature heerkulka electric current qulqulka korontada danabka korontada luminous intensity itaalka iftiinka iyo amount of substance tirada walxaha length dhirirka waxa lagu cabiraa meter international system of unit halbeegiisa caalamiga ah waa meter meterka halbeega ka yar way jiraan sida centimeter iyo millimeter oo kale kuwa ka sareeyana way jiraan oo meterka la badiyo ah sida decameter hectometer iyo kilometer iyo mile oo kale maaska culeyska waxa lagu cabiraa kilogram halbeega caalamiga ah scientifically la isku waafaqsan yahay waa kilogram halbeeg ka hooseeya way jiraan sida gram iyo milligram oo kale kuwa ka sareeyana way jiraan sida tan oo kale time waqtiga waxa lagu cabiraa second-ka halbeeg way jiraan second ka hooseeya second-ka la yareeyo ah kuwa ka sareeyo second-ka la badsho waxa lagu dhuftaana way jiraan sida millisecond oo kale ka hooseeya minute iyo hour oo kale way ka sareeyaan temperature halbeegiisa caalamiga ah waa Kelvin طبعا halbeegana way jiraan sida markaysa centigrade oo kale iyo kuwa system kale sida Fahrenheit oo kale electric current-ga waxa lagu cabiraa ampere luminous intensity itaalka iftiinka waxyaabaha ifa dabcan way kala iftiin badan iftiinka ay soo saareen uu kala xoogan yahay waqti go'an iyo dhinaca go'an marka loo eego gandela lagu cabiraa itaalka iftiinka amount of substance tirada walxaha sida ama markaysa molecules ka atoms ka ions ka oo dabcan chemistry qayb kamid ah waxa lagu cabiraa mole iminkana balan fiirino derivative physical quantity kuwa faraca ah bariyo tusaalooyinkooda kuwa faraca ah waxaan leenahay waa physical quantity laftikooda laakiin ka imaaday todobadii asalka ahaa laba kamid ah ama dhowr xabo kamid ah ama hal xabo kamid ah ayaa la isku dhuftay dhowr xajeer ama la isu qaybiyo si haboon marka midka cusub soo baxaya waxa la yiraahdaa derivative physical quantity it's any quantity that was obtained by multiplying or dividing two or more basic quantities suitably tusaale hadaan fiirino waxaan noo taano area oo kale bedka markaad fiiriso sawirkan waa rectangle wuxuu leeyahay afar dhinac kastana wuxuu leeyahay dhirir u gooniya marka haddii aan dhahna ka soo qaado kale leedhigan dhirirkiisu waa 3 meter baldhaciisuna waa 2 meter marka aan doonayno area-da marka aan doonayno area-da uu ku fadhiyo waxaan sameynaynaa dhirirka iyo baldhacan isku dhufanaynaa marka 3 meter dhirir bay sheegaysaa 2 meter dhirir bay sheegaysaa marka hadaan dhirirkan laba jeer isku dhufanno waxaa noo soo baxay area-di oo ah 6 meter square marka area-da waxaan leenahay waa derivative sababtoo waxay ka imaatay laba dhirir oo la isku dhuftay dhirirkuna todobada asalka uu kamid yahay marka basic quantity oo dhirir ah ayaan laba jeer isku dhufanay tusaale kale speed-ka fiiri bal wadadan waxaa ku socda baaskiil haddii aanu dhahno baaskiilkani waxa uu socday 10 meter buu socda haddii aanu dhahno 10 meter oo socda haddaan dhahno waqti ay ku qaadatana waa 5 second haddaan dhahno markaas waxaan xisaabi karnaa xawaaraha waana 5 second markay 10 meter qaybsadaan second kasta imisa ku soo aadaysa adinkoo 10 qof markaad 5 qof marka 10 doolar qaybsataan qof kasta wixii ku soo aada waa la yaqaan sidaas oo kale haddii aan 10 meter 5 second u qaybiyo second kasta waxa ku soo aaday 2 meter oo speed ko v loo soo gaabiyo wuxuu noqonayaa 2 meter per second oo micnaheedu yihiin baaskiilkani halkii second oo 5 second kamid ah wuxuu soconayaa 2 meter marka speedki wuxuu noqonayaa derivative sababtoo ah wuxuu ka imaaday
laba asal ah ayuu la isu qaybiyay sababtoo 10 meter length sheega todobadii kamid ah 5 second waxay ku sheegaysaa time oo todobadii kamid ah laba asal ah marka la isu qaybiyay kan faraca marka imaanaya aad u mahadsantiin casharkeena waa intaas jumco wanaagsan